kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba halkan waa Somali Cable waxaan ahay Maxamed Cabdiqani Salaad tabinteena tooska ah ayaynu gudagalaynaa wararka bariga dhexe ku godaaman iyadoo xaaladda gobolka uu u muuqdo mid faraha ka sii baxay Israa'iil iyo waliba sidoo kale Iran ayaa isbeegsaday oo weeraro isdhaafsaday iyadoo jimcihii shalay ay ahayd markii Israa'iil ay beegsadeen xarumaha nuclear-ka ee Tehran Iran ayaa iyaduna jawaab rogaal celis ah sameysay iyadoo xalay aan laga seexan Tel Aviv safiirka Mareykanka u fadhiya Israa'iil waxa uu sheegay in ilaa 5 jeer ka badan uu god hoostiisa la geliyay iyadoo uu kaga gabanayay gantaalaha plastiga ah ee Tehran ay ku garaacayeen Tel Aviv labada dhinacba waa Iran iyo waliba sidoo kale Israa'iil waxa ay sheegayaan in weeraradu ay sii socon karaan Iran dhankeeda waxa ay intaasi ku dartay in weerarkani uusan ahayn kii ugu horeeyay uguna dambeeyay oo ay hordhac kaliya ay tahay waxay sheegeen mar walba in ay jawaab kulul oo xanuun badan ay bixin karaan xiisadda siyaasadeed iyo military ee u dhaxaysa Iran iyo Israa'iil ayaa si buuxda isu rogrogtay habeenkii xalay ahaa kadib markii labada dal ay isdhaafsadeen weeraro toos ah oo cirka iyo dhulka iskugu jiray tani waxay calaamad u tahay in gobolka uu galay wajigii ugu halista badnaa tan iyo dagaalkii Gaza sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Varis sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Iran waxa uu sheegay in duqeymaha xalay aysan noqon doonin kuwa ku ekaada hal jeer balse ay qorsheynayaan weeraro kale oo ka ballaaran kana xanuun badan buu yiri mid ka mid ah saraakiisha ayaa waxa uu yiri iska caabinta kama dhammaan doonto kumana eka weerarkii xalay waxna lama dhaafi doono oo ciddii duulaan soo qaada waxa ay la kulmi doontaa jab xanuun badan oo laga shalaaya ayuu sii raaciyay weerarka Israa'iil ayaa waxa la xaqiijiyay in uu beegsaday hangar diyaarado dagaal ah oo ku yaala garoonka caalamiga ah ee Mehrabad ee magaalada Tehran warbaahinta ayaa waxa ay sheegtay in qaraxyo laga maqlay garoonka balse aysan wax saameyn ah ku yeelan hawada ama howlaha garoonka dhinaca kale Iran ayaa waxa ay sheegtay in ay soo riday diyaarado sahmin ah oo Israa'iil si qarsoodi ah ugu soo dirtay xadka waqooyi galbeed ee dalkaasi tani waxa ay muujinaysaa in labada dal ay si toos ah ay isugu galeen dagaal dhanka hawada ah iyo waliba dhulkaba sidoo kale afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa waxa uu sheegay in weerarka Israa'iil uu burburiyay dhammaan fursadihii wada hadalka nuclear-ka ee u dhaxeeyay Tehran iyo Washington ma jirto wax wada hadal ah oo macno sameynaya marka Israa'iil loo ogol yahay inay si toos ah noogu weerarto ayuu yiraahday Ismaaciil Baqay oo isagu ku hadlayay afka wasaaradda arrimaha dibadda hogaamiyaha Hamas Ezad ayaa waxa uu isaguna taageeray weerarka Iran isaga oo sheegay in ciddii xadgudub samaysa aysan nabad heli doonin waxaana uu intaasi ku daray in weerarka Iran uu cadeeyay in nidaamkii difaaca cirka ee Israa'iil uusan noqonin mid ku filan inay iska difaacaan Tehran weeraradii ka imaanayay iyagoo uu sheegay inaysan ahayn kuwa la isku haleyn karo sidoo kale Venezuela madaxweynaheeda waxa uu isaguna sheegay Israa'iil oo uu ku tilmaamay dambi dagaal iyo waliba ku tumasho sharciga caalamiga ah isaga oo Netanyahu ku sifeeyay Hitlerka cusub ee qarnigan waxa uu ku eedeeyay dalalka Ingiriiska Faransiiska Jarmalka iyo waliba Mareykanka in ay taageero siinayaan qarnigan Hitlerka 2025 oo uu ula jeeday Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha Israa'iil waxa intaasi dheer afayeen u hadlay militariga Israa'iil waxa uu sheegay in Israa'iil ay duqeysay goobo badan oo laga hago gantaalada difaaca hawada ee ku yaala gudaha Tehran iyagoo uu sheegay in howlgalka uu ahaa mid istiraatiiji ah oo loogu talagalay in lagu burburiyo awoodda difaaca cirka ee Iran xilli dagaalka uu yahay mid sii xoogeysanaya oo uu sii socdo dawladda Jordan ayaa waxa ay maanta dib u furtay hawadeeda taasi oo xalay la xiray sababo la xiriira amniga dalkaasi hawadiisa wasiirka arrimaha dibadda ee Oman Badr al-Busaidi ayaa isagana waxa uu wacay dhigiisa dalal badan isaga oo ku baaqay in la joojiyo weerarada si loo badbaadiyo xaaladda gobolka oo u muuqata mid ka sii daraysa dhinaca kale laba qof ayaa ku dhintay bartamaha Israa'iil kadib markii mid ka mid ah gantaalada Iran uu si toos ah u haleelay iyada oo dhaawacyaduna ay gaarayaan boqolaal waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in gantaaladu ay gaareen magaalada Tel Aviv oo caasimad u ah Israa'iil taasi oo tallaabada
ay Iiraan ku sheegtay uu ahaa in lagu ciqaabay duulaankii Israa'iil ay ku qaaday saldhigyada muhiimka ah ee lagu bacrimiyo nuclear-ka. Sida ay sheegeen khubaro xagga siyaasadda ah, Israa'iil waxa ay rajeynaysaa in Mareykanka uu si buuxda ugu lug yeesho dagaalkani si loo gaaro isbeddel xukunka Iiraan ku yimaada. Professor Jahram ayaa waxa uu yiri Israa'iil waxa ay sugaysaa in xiisaddu ay sii fido si Mareykanka buu yiri si rasmi ah ugu dhexgala dagaalkani, waxaana ay doonayaan buu yiri in Iiraan laga rido nidaamka hadda ka jira. Sidoo kale Tel Aviv waxa ay rabtaa buu yiri in Washington ay dabka soo geliso. Xaaladda hadda jirta ayaa u muuqata mid geli karta marxalad cusub oo colaadeed haddii beesha caalamka aysan si degdeg ah iskugu imaanin oo aysan u joojin xiisadan sii xoogaysanaysa. Walow Tehran ay sheegeen in ilihii diblomaasiyadeed wixii lagu raadinayay ay soo afjarmeen, kadib bay yiraahdeen in si bareer ah loo beegsaday xarumaheena nuclear-ka, inaguna intii karaankeenna ah waanu isdifaaci doonaa oo xabadda gantaalka iyo xitaa haddii nuclear-ka laga maarmi waayo waxaan diyaar u nahay inaan adeegsano. Dowladda Shiinaha waxa ay sheegtay in Israa'iil ay jabisay xuduudda qad cas ay isku fureen kadib markii ay beegsatay bay yiraahdeen xarumaha nuclear-ka oo ku yaala gudaha Iiraan. Waxay sheegeen inay tahay marmarsiyo aan la difaaci karin, gaashaanna aan heli karin. Waxaa isa soo taraya baaqyada caalamiga ah oo ku saabsanaa in arrintani ay sii fidi karto. Washington qudheeda ma aysan filayn Iiraan inay halkaasi gaarsiin karto oo waxay filaysay in gacmuhu ay u laabnaan doonaan, Iiraanna waxa ay doonto ay samayn karto. Ha yeeshee Tehran ayaa muujisay iska caabin degdeg ah, iyada oo wasaaradaha kala duwan ee dalkaasi ay baahiyeen mar walba in jawaab kulul la filan karo. Weerarada Iiraan way sii socon doonaan ayaa sidoo kale lagu yiri. Waxaa soo baxaya wararka ay baahinayso wakaaladda wararka ee dowladda Iiraan ee Faris, kuwaasi oo sheegaya in weerarada Iiraan ay sii socon doonaan oo aysan ku ekaan doonin weeraradii xalay. Wakaaladdu waxa ay soo xiganaysay sarkaal aan la magacaabin oo ka tirsan dowladda Iiraan. Sarkaalka oo soo xiganayay faallooyinka taliyayaasha sare ee militariga waxa uu sheegay Iiraan in ay sidoo kale maalmaha soo socda beegsan doonto saldhigyada Mareykanka ee gobolka uu ku leeyahay oo kaliya aysan eegi doonin Israa'iil. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa waxa ay xirtay hawadeeda oo ay ku sheegtay ilaa amar dambe inay xirnaan doonaan. Wasaaradda gaadiidka ee Israa'iil waxa ay shaaca ka qaaday in hawada dalkaasi la xiri doono ilaa amar dambe. Waxaa ka mid ah goobaha la xiray gegida diyaaradaha ee Ben Gurion, kaasi oo la sheegay in uu ku xiran yihiin dhammaan duulimaadyada imaanaya ama baxaya ilaa amar dambe. Website-ka garoonka uu ku leeyahay barta internet-ka ayaa waxaa saaka ay u muuqataa mid hawada ka maqan oo aan shaqaynaynin. Wasaaraddu waxay sheegtay shalay in rakaabkii doonayay in ay safraan ay heli doonaan macluumaadka saxda ah ugu yaraan 6 saacadood ka hor inta aan hawada dib loo furin. Iiraan dhankeeda waxa ay sii muujinaysaa in ay jawaab kulul bixin karto mar walba. Kadib markii Jimcihii Israa'iil ay qaaday mowjado weerar ah oo ay ku garaacday xarumaha nuclear-ka saldhigyada gantaalada ee Iiraan, Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu sanado badan ku baaqay weerar noocan oo kale ah oo ka dhan ah waxa uu ku sheegay cadowga oo khatar ku ah gobolka buu yiri isagoo ka wada Iiraan. Iyaga oo ka jawaabaya Iiraan ayaa dhowr diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ku tuurtay Israa'iil. Laakiin xalay fiidkii waxay Iiraan fulisay weerar gantaalo ah oo ay ku garaacday goobo kala duwan oo Israa'iil ah. Magaalada Tel Aviv ayaa waxaa cirka isku shareeray qiiq aad cirka iskugu shareeray, waxaana la maqlayay qaraxyo iyada oo dadku ay gabaad raadsanayeen. Tani ayaa xitaa keentay in safiirka Mareykanka Israa'iil u fadhiya 5 jeer in ka badan dhulka hoostiisa god ku yaala la galiyay si gabaad looga dhigo gantaalada oo ay ka baqayeen in safaaradda la beegsan karo. Iiraan inkastoo ay daciifsan tahay oo sidii ay ahayd ka daciifsan tahay sanad ama 2 sano ka hor, waxay haddana muujinaysaa in ay weli awood u leedahay inay si adag u jawaabto oo weerarada Israa'iil aysan gacmaha ka laabanin. Ciidamada difaaca ee Israa'iil waxay iyagu dhankooda sheegayaan in ay sii wadayaan duqeymaha ay ku bartilmaameedyada ku yaala Iiraan. Bayaan kooban oo la soo dhigay Telegram-ka halka ay ku leeyihiin ciidamada IDF la yiraahdo waxa ay ku sheegeen in ciidamada cirka ee Israa'iil ay sii wadi doonaan duqeymaha ay Iiraan ku beegsanayso si meesha ay uga saaraan khataraha Iiraan.
qoraalka ayaa lagu lifaaqay muuqaal muujinaya duqeynta hawada waxaana ay kusoo beegmatay in ka badan 24 saacadood kadib markii Israa'iil ay bilowday weerar ay ku qaaday saldhigyada military ee Iran kuwaasi oo ku dishay 3 taliye oo ka tirsan ciidamada Iran sida ay sheegeen militariga Israa'iil ee IDF. Iran ayaa tan markaasi ku jawaabtay gantaalo ay ku garaacday Israa'iil. Sawirada Tel Aviv ka imaanaya ayaa u muuqda kuwa ka gadisan jawiga ay ku jirtay magaalada muddooyinkii hore waxaana lagu soo waramayaa in isbedel weyn uu ka muuqdo guud ahaan muuqaalada ka imaanaya Israa'iil. وهجاج warbixintaasi waxa aynu ku eegaynay xaaladda guud ee gobolka ka taagan weerarada ay isdhaafsanayeen Israa'iil iyo waliba sidoo kale Iran. Wixii soo kordha halkan aynu idinkula soo wadaagi doonaa oo noo madal ah sidoo kale waxaan idin keeni doonaa falanqeyn guud oo aynu ku eegi doonaa xaaladda gobolka dagaalada ay isdhaafsanayaan labada dhinac. waxaan ahaa Maxamed Cabdiqani Salaad akhyaaray nabadgelyo. usoo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamula abka Dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka Dahabalaas.